munaasabadu waxay tito xaraga lagu ku jaray xarunta cusub maamulka degmada Baydhabo iyo kan dhalinyarada may ku qayb galay rasmiyan xaragoon ku jaray madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo iyo weheliyayeen xubno ku tirsan golajay wasiirada madaxweyne Abdicasiis Laftagareen oo kormeeray qayboya ka koobanta xaruntan iyo amaanisada quruxda badan ee Landis iyo sidoo ku faa'iideysay mashruuca GBLG oo barnaamijka horumarinta degmooyinka dalka maynu soo mahadnagay dadkii gacanta ku jeysadii suurtagalnimada xaruntan GBLG يهذه كشقي مشروعا كنت هذه مهسين وزارته هكشقي هذه JBLG يهذا كلا ولا شقيو شغلوا في اليوم قبل إيه مهسين ولكن ما نجي وزارته هولها جود وزارة مالية وزارة أرمها جودها إيه تذكير وقاشة يوم مهسين maamulka gobolka iyo degmada especially maamulka degmadii hore gudoomiyihii hore nasiib wanaag dawladnimada wali waxa wala isku dhaxalo degmada Baydhabo wali ka amaanay sida JBLG la shaqeeyaas oo inay guurti sharuudo canshuuraha maamul wanaaga adeegyadii kale ee ku fadaayo maamulka degmada ku shaqeeyo ka nabadda ururada bulshada isdhaxgalka degmada walaasnada iyo ka guuleysatay qaadowka canshuuro intaba eedayadan ka mahadsan waana ka dhiirigeliyana gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Xasan Macalin Axmed Bikole iyo qaar kumid ah howlwadeenada mashruuca GBLG mayo ku hadlayna muhiimada mashruuca Sunley bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed wasaaradaha loo daadijinayo maxaa la maamulada dawladaha hoose sida agaasimaha ku sheegay waxaan وكا كوميها مشروع عن قيبة كلا دوان أو capacity building service كا إيو محل ده واحدة جندر كا capacity building كوحلا وطلع جالين capacity building كوحلا وطلع جالين دولة هوسة وحيه هذا عن توبرنو شنت ما دام شهري أزود عن كوبان معي شنت هي أزود هيات كستقيب أي مسؤول كتاعي for example habitat وحين مسؤول كتاعي إني أود سيسو واحدة بلانين كا دولة هوسة هذه هذا فراسنا GBLG كويوشة أو هكذا قال جروب الفراو أو دقمة معمول كدقمة بينه الفراو ولا نسي مدحونا هكذا قال شعب كان شرفاته دقمة شرفاته GBLG هيدا نسكارم شرفاته ويعني محاي والقيمة له هذه يعني محاي الفراو نوعي wasiirka wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed Maxamed Xuseen iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar Cabdi mayo sheegan intii mashruucan muhiim ah yahay horumarinta degmooyinka gobolada Koonfur Galbeed iyo dardargelinta dhisowga golaha deegaanka mashruuca JBLG wasaaradda maaliyadda wali ku madata partners oo la shaqeeyo ku madata inkastoo oo direct leeyahay in la shaqeeyaan laakiin meel raay mashruuc kasta oo sameeyaan oo degmooyinka oo maamulada ku jira ku sameeyaan contribution oo waliba jaray dawladda meel raay contribute gareys oo 3% kaas markii uu dhiibno meel raay lacagta meel raayona ka shabaayana saasa mashaariicda la ka qabada barnaamijka JBLG ga wayba ku shaqeeyay horumarinta degmooyinka oo la dhisay golayaasha deegaanka markan taas macnisha ma yata hadii Baydhabo culeysyo badan oo la saaray iyo codsiyo badan aan kooy iyagoo ku faa'iideysadaas caasimadii ku meel gaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isaas oo kale inay magaalooyin oo canshuur badan hasaarada dartiye yeelanka dar iyaga golo deegaan lahayna aniga tan ku faa'iideysta barnaamijka JBLG ga taas suurtageliyay laakiin degmooyinka kale mal sameeyay kor madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in dawladdiisa iyo dardargeliyay tasdiireedan habeeyowlanka soo biilay xarumo dawladda iyo goobadanta guud minus sidaas oo kale ku hadlay arrimo golaha deegaanka oo lagu guuleysaday qayb ka mid ah degmooyinka sidii lanka dhisay lahay golo deegaan oo landheeyay xuquuqda iyo lahaayeen haweenkana la ku sii tumisiyadka degmo ee Koonfur Galbeedna lagu sameeyay doono golo deegaan furitaankii xaruntii degmada Baydhabo xafiiskii iyo gurigii dhiisiga deegaanka ahayd waxaan rajaynaynaa insha Allah xarumo kale oo badan inay noo suubsamaan oo ugu horeyso xaruntii gobolka ayadana la suubiyo xarumihii dawladda oo dhan aan sameynay insha Allah annaga oo qayb ka ah hay'adaha JBLG iyo hay'ad kasta oo gacan naga siin karto waxay ka mid tahay dib u kabashada iyo dib u dhiska dawladnimada Koonfur Galbeed qayb ka tahay
waana soo dhaweynaynaa aadan ugu faraxsannahay runtii arrinta suu horey u sheegay cabdiraxmaan cali gaab nin aada xoogaal u ah waaye dhismaha golaha deegaanka waa runtiis taariikhda in la sheegay u baahan tahay waxay bilaabatay 2007 waxaana ugu horreysay ku bilaabatay degmada Baydhabo nasiib daro waata ogtihiin oo degmada Baydhabo daruufo badan iyo dhibaato badan iyo cadawyo badan ay soo martay ayadoo maamulku uu samaysan yahay yaa waxaa qabsaday shabaab sidii baa lagu cararay waa lagu soo noqday insha Allah haddana waa loo samayn doonaa waxaa run ah oo aan rabnaa inaan ka suurtagelino degmooyinka koonfur galbeed waa 3 gobol waa 18 degmo 18 degmaba waxaan ka suurtagelinaynaa golihii deegaanka golaha deegaanka markii la dhisay waxaa lafdabar u ah gabdhaha waa in lagu daraa gabdhaha golaha deegaanka oo ay boqolkiiba 50 ay ka ahaadaan waxaa la leeyahay boqolkiiba 30 boqolkiiba 20 boqolkiiba intaas laakiin aniga waxaan aaminsanahay inaanan tiro loo qabanin boqolkiiba 50 ay noqdaan boqolkiiba 60 ay noqdaan maxaa yeelay gabdhaha waa ka aaminsan yihiin wiilasha Faisal Maxamed Isaaq warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed Baydhabo